intii bashar ku dul noolaa adduunkan waxaa jiray dad badan oo sheegtay inuu ilaahay soo dirsaday oo yihiin rasuul alle mararka qaarna waxaabay sheegtaan inay ilaahay yihiin istaghfirullah waa mawduuc si u kagan laakiin waxaan idin soo xulaynaa mawduucu ka yaabka badan yahay xalqadeennan maantana waxaan ku soo qaadan doonaa dad badan oo sheegtay awood aanay lahayn juhaymaan haddaynu magacan qariibka ah ka raadina Google-ka waxa inoo soo baxaya qisadan la yaabka leh ee dhacday 1979kii waana sanadkii ay ka dhacday goobta ay Kacbadu ku taalo dhacdadii ay caalamul islaami oo dhami ka qayliyeen xilligaas oo war sida duufaanta u socda soo gaaray muslimiintii ku tukanaysay masaajidka xaramka warkaas oo sheegaya inuu soo baxay mahdigii la sugayay waxa arrintan ku kacay rag badan oo hogaaminaya Juhaymaan al-Atibi ninkan oo aaminsanaa in xilligan lagu jiro uu yahay aakhiru zamaankii mahdigii ay muslimiintu sugaysayna uu ku dhow yahay inuu soo baxo kadib ninkani waxa uu galay safar uu ku raadinayo mahdiga waxaanu si kadiisa la kulmay ninkan lagu magacaabo Maxamed bin Abdullah al-Qahdani waxaanu ku qanciyay inuu yahay mahdigii la sugayay ninkaas markii hore arrinka kaftan ayuu u qaatay laakiin markii laga badbadiyay lana buunbuuniyay waxa uu liqay arrinkii waxaanu bilaabay inuu dhab u qaato taasi waxay ahayd tallaabadii koowaad ay qaadeen tallaabadii labaad waxay ahayd mid la yaab leh waxaanay ahayd markii uu go'aansaday Juhaymaan inuu Kacbada gudaheeda kaga dhawaaqo soo bixitaanka mahdi ku sheegan subaxdii 28 November ahayd sanadkan oo ahaa 1979kii waxay ninkii ku soo qaadeen naxash markii salaada subax muslimiintii ka baxeen mid kamid ah xubnihii ololahan waday ayaa mikrofoonka masaajidka fuulay waxaanu jeediyay khudbad uu ku cabirayo inay aakhiru zamaankii tahay mahdigiina soo baxay warkii cirka ayuu isku sii shareeray waxaana arrinta soo faragelisay dawladdii Sacuudiga iyagoo weerar ku qaaday Juhaymaan iyo xulafadiisii waxaana dhacday in rasaas la iswidaarsado waxaana arrinkan qalalaas ah awgii Kacbadu u xirnayd 15 maalmood halka la laayay maxkamadeeyay Juhaymaan iyo xulafadiisiiba waxaana warkani ku faafay oo gaaray caalamka oo dhan hadda qisada Juhaymaan uga baahan tihiin faahfaahin inta ka badan waxaan idin wadaagi lahaa inaad daawataan documentary-ga BBC qaybteeda Carabiga soo deysay ee Xisaaru Makkah Jesus of Kitawi waddanka Zimbabwe gaar ahaan magaalada Kitawi waxa ka soo baxay ninka nabinimada sheegtay haddaynu Jesus of Kitawi ku qorno Google-ka waxa inoo soo baxaya sawirrada iyo muuqaalada ninkan iyo dadka la socda oo xiran maryaha qaabkan ah waxaanay ka aaminsan yihiin dadka halka ku nool inuu ninkan yahay Nabi Ciise calayhi salaam iyagoo kuwa taabacsani u sameeyeen buug tilmaamaya inuu isagu yahay masiixigii dhabta ahaa Mitsuo Matayoshi Mitsuo waa siyaasi Japanese oo isku aaminsan inuu yahay Allihii kownkan istaghfirullah waxa uu rabay ninkan inuu qabto qiyaamada dabadeedna uu sida dadka ku xisaabiyo laakiin xisaabtu waxay ku imanaysaa uun sharci oo kaliya waana inaad sulda lahaataa sidoo sharciga wadda baqana waxa uu soo sharaxay tiraba dhowr jeer laakiin cidna way dooran weyday siyaasadda Matayoshi waxay ahayd inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Japan kadibna uu xisaabiyo shacabka ku nool waddanka Japan inta kadibna wuxuu ku sii tala jiray inuu dhulka dhan qabsado sidaana uu dadka adduunka dhan ku xisaabiyo Vizarion wiilkan Vizarion waxa uu qadarin baaxad leh ku leeyahay gudaha waddanka Serbia waxaanu ka mid yahay shakhsiyaadka sheegtay ilaahnimada waxaanu haystaa kumanaan kun oo aaminsan waxa uu faranay iyagoo madaxa foorarinaya sameeya waxa uu aasaasay Vizarion kaniisada uu ka khudbadeeyo waxyaabaha uu watana dadka ku baro waxaanu jecel yahay inuu fadhiisto meelaha dhaadheer kadibna uu arko dadka ka hooseeya kana baryaya naxariis iyo dambi dhaaf qofkii aan awoodin inuu isaga si toos ah naxariista u weydiistana waxa ku filan inuu u tukado sawiraantiisa dadka waxaan aaminsanna waxa guri walba u yaala sawirada ninkan Cabdiwali Sheekh Cali Cilmi ninka Soomaaliga ah ee sheegay inuu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wajigiisa hayo dhinacayga waxa fadhiyaha oo yaala Xabiibullah Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi wa ala ashaabihi wa ajmaciin ninkani sidoo afkiisa ka qaranayo waxa uu leeyahay waxaan idin tusayaa sawirkii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaanaad ka arki kartaa muuqaalada laga duubay isagoo dadka maangaabka ah u sheegay inuu yahay nabigii subxaanallah qisadan waxaanu isrin faahfaahinteeda raadiya balse waxaanu garan weynay cid ninkan taariikhdiisa si sax uga hadasha hase yeeshee waxaa nagu maqaalo ah inuu ninkani hadda dhintay waxa uu idin leeyahay laagtii ayaad muuqaalka ka ilowdeen